بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داودي لدي الهانتين بميل كستو جوجتان كسو دوادا برنامجكيني دور جوجتا برنامجكيني دور جوجتا أو تحانيه إنو سعودي إيه صحارها نيبان دلك ناميبيا وغيبتي سي أفراد وانا غيبتي وقدم بيسي إبل سمركو هوري فضلا nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo galino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay aad bay wax kasta ugu adkaadeen daalka raxanta waxaa ka faa'iidaysanaya hadda dacwada iyo weliba haadda mana ka ceshan karaan raqdooda waa bishii 11aad waxaa soo muuqatay daruur waana tii laga sugayay in ay roobku ka da'o balse cimilada iyo dabaylaha ayaa firdhiyay daruurtiina way baabaaday goobtiina weli way sii adag tahay nolosheedu duurjoogta laftigeedu way sii itaal daraynaysaa marba marka ka dambaysa abaartu aad bay ugu daba dheeraatay dhirtu waa horeba way qallashay wax yar oo dhulka ku soo hadhay ayay ugaadha kale ay iyagu cunayaan oo ay naf ka deeyaan bal inay maalmo ku sii noolaadaan roobka lahaantiisa way u wanaagsan tahay raxantan iyo weliba qoyska maadaama biyahan yar ee ku sii hadhay goobta ay isugu imanayaan dhammaan duurjoogta oo dhami iyagu halkaa waxay ka helayaan faa'iido iyo fursad lama hubo inuu roob ku filan dhulka heli doono oo taasi waa mid maqan saadaashana lama garan karo qoyskii boqortooyada waxaa ku soo biiray agabaruuro yaryar way adag tahay inay noloshan aadka u adag ka dabaashaan iyo weliba jiilaalkan daba dheeraaday naybaan waxay isku beddeshay umus iyo abaar balse hooyadan iyo weliba walaalaheed si wada jira ayay u korinayaan dhallaanka si ay awood u yeeshaan una sarfeefalaan oo ay noloshan adag u dhaafaan gooshu waxay u baaqaysaa dhallaankeeda waxaanay ugu yeedhaysaa inay qoyska ku soo biiraan waxaa isna daba socda aarka ama boqorkii saxaaraha ee dhalay agabaruuradan
durba way u soo dhowaadeen dhallaankii, balse waa mid cadho badan. waxaanu diidan yahay weli in ay qoyska ka mid noqdaan, balse aakhirkii markuu garowsaday waxay ka mid noqdeen qoyskii. waanu oggolaaday. sanad kasta jiilaalku aad buu duurjoogta ugu adag yahay saxaaraha Naybaan, waxaanay dhammaantood isku dayayaan in ay la dabaashaan nolosha adag. dhulkii saxaaraha Naybaan daruurihii ayaa isqariyey, waxaana isqabsaday hilaac iyo onkod, waxaana da'ay roobkii. dhulkii waxa uu noqday barwaaqo, noloshii adkaydna way ka baxeen duurjoogtii. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha yaga. dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. dhulka meel kasta waxaa yaala biyihii, barwaaqaduna way u bilaabantay. waa tahay daawadayaal, barnaamijkeennii iyo qaybtii afraad intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. intaaynu barnaamijkan la mid ku kulmi doonno, waxaanu dhammaantay idin leenahay kadaba iyo kulan dambe oo xiiso badan.